waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad warkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed oo si cad u diiday in shirka madaxda dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada lagu qabto magaalada Muqdisho isagoo sheegay in Muqtaar Roobo oo ka shaqeynayo sidii loogu dhibaateyn lahaa magaalada Muqdisho shirkaasi oo Garowe loo aadayo Axmed Qorqor oo laga cabsi qabo inuu shirkaasi diido ka qaybgalkiisa warkanaga ayaad ku daawan doontaan haddaba maxaa xilligan kordhiyay xiisada dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada warkanaga ay qayb waxaad daawan doontaan qaybo kamid ah suuqa bakaaraha oo xirmay kadib amar ka soo baxay kooxda al-shabaab wararka ugu dambeeyay u diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownay shir madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka oo lagu qaban lahaa isla markaana si weyn looga wada hadli lahaa ayaa laga bedelay magaalada Muqdisho kaas oo haatan lagu qaban doono magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland sida uu ogaaday Warar TV xogtaan uu helay Warar TV ayaa si kastaba sheegaysa in shirkaasi markii hore qorsho ahaa in lagu qabto magaalada Muqdisho hase yeeshee uu diiday madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo yimaada caasimadda Soomaaliya isagoo sheegay inay ku sugan yihiin shakhsiyaad aan lagu aamini karin amniga qaranka ka ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha xubnaha uu magacaabay wasiiradiisa ku jira ugu horeeya Muqtaar Roobo ila wareedii ku dhow Laftagareen ayaa soo sheegay in madaxweynaha Koonfur Galbeed uu sheegay in hadda iyo waqti u dhow aanu diyaar u ahayn inuu Muqdisho tago ama xitaa uu habeenku hoydo Laftagareen ayaa la rumaysan yahay inuu aad u diidan yahay qorshaha ku aadan in madaxda dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada ay ku shiraan magaalada Muqdisho Laftagareen warkiisu waa cad yahay maxamed cabdikariin wuxuu ka tirsan yahay maamulka Koonfur Galbeed wuxuuna ku jiraa shakhsiyaadka aadka ugu dhow hogaamiyaha maamulka Laftagareen xilli aan wax ka weydiinay waxa uu noo cadeeyay in maamulka haba yaraatee uu sidoo kale uusan ogolaan doonin inuu xiriir la sameeyo dowladda federaalka isla markaana uu si toos uga aamin baxay Laftagareen ayaa la rumaysan yahay inuu weli aad uga careysan yahay in dowladda federaalka ay xil wasiir u magacawday Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur taas oo la sheegay inuu u fasirtay dagaal loo soo bareeray oo dagaalkiisa ay dowladda diyaar u tahay wixii ka dambeeyay magacaabisa Roobo Laftagareen ayaa xiriir dhow la sameysay dowladda Itoobiya sidoo kale oo isku fiican yihiin dowladda federaalka isagoo ka tagay Addis Ababa iyo Jigjiga halkaas uu kula kulmay saraakiil ka tirsan militariga dalkaas iyo sidoo kale sirdoonkooda sidoo kale saraakiisha Itoobiyaanka ayaa soo gaaray Baydhabo halkaas uu ku qaabilay isagoo shiraf dheeriya kula qaatay sida oo ogaaday Warar TV shirka ka dhacaya Garowe ayuu madaxweyne Xasan Sheekh doonaya inuu isaga xaliyo madmadow kala dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada iyadoo wararku ay sheegayaan in madaxweynuhu aanu xilligan diyaar u ahayn khilaaf iyo dagaal siyaasadeed maadaama uu doonayo inuu mideeyo oo dagaal loo dhan yahay lagu qaado maleeshiyada si kastaba maamul goboleedyada ayaa u muuqda in dagaal siyaasadeed ay u bareereen kadib markii ay qaateen tallaabooyin la xiriira wada shaqeynta ugu jiraan dowladda federaalka maaliyadda ayaa sidoo kale qayb ka ahaa go'aamada dowladda federaalka ka dhanka la qaaday taas oo dadka Soomaaliyeed soo jiidatay dhaqaaqyada siyaasadda ayaa la rumaysan yahay in tallaabadaas ay bilow u tahay kuwa ka waaweyn oo soo socda oo ay qorsheynayaan madaxda gobolada maamulada ayaa la sheegay inay dib uga gurteen madaxweyne Xasan Sheekh kadib markii ay ka gadoodeen hanaankii loo maareeyay qandaraaska qaadka dhismaha xukuumadda magacaabista xilalka sare ee muhiimka iyo ku sheegaya in markaasi lagu soo qaaday kuwa aan jirin oo duulaana taas oo dowladda federaalka tusinaysa wada kale oo ay maamul goboleedyada ku qasban tahay inay xaliso dowladda federaalka kaligeed ma duuli karto maamulada la'aantood maamuladu waxay lugaha ka jebiyeen farmaajo waxay u diideen in horey loo socdo taas iyadoo laga haysto caqli iyo siyaasad haddaba Xasan ma ku dhiiran karo inuu maamul goboleedyada gooyo diyaarna uma ahan inuu al-shabaab la dagaalamo iyo inuu maamulada la dagaalamo midooda ayaa u furan Xasan hadda wuxuu leeyahay nimankaas ayaa la dagaalami rabaa oo aan qorshooda gal rabaa sidaas darteed ma awoodo inaan nimankan xilligaani u babac dhigo ama aan weerar ku qaado sidaas ayaa laga soo xigtay taasi waxay muujisay halka ay kala joogaan sida ay muhiim u tahay in dhinacyada ay la yimaadaan aragti ku qotonta xasilooni ama xitaa ay ku dhimi karaan بريشركا iyo culayska imaanaya dhinacyo kala duwan iyadoo ay taasi jirto
xasan dhibaato weyn ayay ku noqon kartaa la dagaalanka maamulada. waxay sidoo kale soo jiida doontaa indhaha caalamka iyo gobolkaba in siyaasaddaasi ay noqon karto mid aad u qariban ama aad u adag, waana midda keentay intaasi dowladda federaalka ay u raadiso xal waara ama qorshe ay ku soo jiidan karto indhaha caalamka ka u xasilooni ku seelaasan. haddii uu sii socdo buuqa siyaasiga, dhinacyo badan ayaa u arka in halistu kordhi karto, cabsidu ay noqon karto mid aad u fara badan. taas ayayna ku xiran tahay hadba sida loo soo jeediyo hanaanka nabadgelyada iyo wada shaqaynta kooxaha siyaasadda isku haya. haddaba xasan sheekh maxamuud midaasi ayaa qasbi doontaa. maamulka koonfur galbeed ayaa haatan ah midka ugu horeeya ee qasbay in shirka halkaasi laga weeciyo, balse qoorqoor ayaa qorshaha kula jira, wuxuuna leeyahay waa muhiim in midaasi la sameeyo. haddaba maalmaha soo socda ayaa jawaab la sugayaa. axmed qoorqoor warkiisu wuu cad yahay, waxauna sheegay inuusan marnaba aqbali doonin in haddii aan la aqbalin qorshihiisa wax socona aysan jirin, islamarkaana aysan aqbali doonin shirka ka dhici doona Garowe oo ku tilmaamay mid koox dana gaar la ay wadato. haddaba wararka ugu dambeeyay ayaa muujiyey in dhowr tallaabo ay muhiim tahay, taasoo ay tahay in la qaado, waxaana dadka qaarkiis ay si weyn u sugayaan fursado ay tahay haatan in la abuuro. tallaabooyinkaasi waxaa ka mid ah in dadkii deegaankuba ay ka qayb qaataan siyaasadda furan, taasoo muujisay haddii sida ay muhiimka u tahay in la hagaajiyo qorshaha isku xiran, taasoo si weyn qayb uga qaadan karta isbedeladii ugu dambeeyey. haddaba iyadoo ay taasi jirto, haddana dadka qaarkood waxay ku talinayaan in xasilooni iyo qaab nabadgelyo lagu wajaho dadkii deegaanka, lana abuuro fursad ay tahay in si wada jira dhinacyadu uga wada qayb qaataan, taasi oo kordhisay cadaadiska dowladda federaalka ay ku hayso qorshahaas. waxaa sidoo kale xasan sheekh maxamuud uu ku dhiiraday inuu xilalka u celiyo iyo darajooyinka saraakiil farmaajo horey ugu cuyuubiyey xilalka. taasina waxay ku noqon kartaa wejigabax kale iyo tallaab kale u muujin doonta qaabka aysan wada shaqayn uga dhexayn isaga iyo maamulkii hore, waana tan ugu badan ee dhinacyada siyaasadda haatan u leeyihiin. waa in la qaadaa tallaab degdega, taas oo muujin karta in wada shaqayntii la rabay ay meesha ka baxday, ama taasi ay keeni karto in xaalka degdeg loogu laabto islamarkaana wax laga qabto, taas oo dhinacyada tusi doonta fursad muhiim ah oo ay tahay in guul lagu keeno. dadka qaarkood ayaa ku talinaya in hanaankaas nabadgelyadiis si weyn loo wajaho, dadka qaarna ay la yimaadaan aragti muhiima oo keeni karta isbeddel dhaba iyo mid siyaasadeed si xasilooni loogu abuuro dadkii deegaanka, taas oo qayb ahaan taageeri karta isbeddelada dhabta ay tahay haatan in la sameeyo. inkastoo dowladda federaalka ay si weyn arrimahaasi kaga carartay, haddana haatan waxaa dadka qaarkiis si weyn u soo jeedinayaan in lala yimaado aragti fayoobi leh, taas oo abuuri doonta xasilooni iyo sidoo kale in dhinacyadu wada shaqeeyaan. waana muhiim in haatan laga fekeraa tallaabta ay tahay in la qaado, taas oo xasilooni u yeeli doonta dhammaan dhinacyada siyaasadda, mana cadda haddii kaasi noqon karto qorshe kale oo haatan wax ka bedeli kara. haddaba maamulka xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn loo sugayaa tallaabta uu qaado, fursadda waxaa loo arko waddada ay tahay inuu abuuro, taasoo dhinacyada u soo jiidan karta tallaab ay tahay in la wada sameeyo ama guul u keeni karta isbeddelada dhabta. mana cadda qorshahaasi sida uun taageeri karo isbeddeladii ugu dambeeyey, halkaasna wuxuu noqon karaa qorshihii ugu dambeeyey isbeddelka, waxaana dadka qaarkiis ay wada sugayaan tallaab kale oo muhiima oo ay tahay in si fiican looga wada fekero. dowladduna waxay u soo jeedi doontaa wadda saxa, taas oo tusi doonta sida ay tahay in loo qiimeeyo shaqooyinka dadka iyo dowladduna si weyn ayay isha ugu hayaan. haddaba tallaabooyinkan waxay imaanaysaa iyadoo amni darrada magaalada muqdisho meeshii ugu sarraysa gaaray, kooxuhuna ay iska xiran karaan meesha ay rabaan ama xitaa ay ka abuuri karaan xaalad siyaasadeed. suuqa bakaaraha ayaa saacadihii lasoo dhaafay u xirnaa kooxaha hubaysan. arrintan ayaa lasoo wariyey inay salka ku hayso lacaga canshuura oo xaddaaf ah oo ay duldhigeen kooxaha hubaysan ganacsatada suuqa, taasoo keentay in qoobaha gaar ay xirmaan. sidoo kale qaar ka mid a ganacsatada ayaa sheegay in hanjabaad uga timid kooxda, islamarkaana cabsi darteed ay u xireen goobahoodii ganacsiga. macadda haddii maalmaha soo aadan la samayn doono tallaabooyin kale wax ku ool ah oo lagu qaadi karo xalalkaas, taas oo muujin doonta siday muhiim u tahay in xal dawliya la gaaro, taasoo dhisi doonta dhammaan siyaasiyiinta ama u keeni karta qorshe cusub oo ay siyaasadooda ku xoojiyaan, taas oo haatan la filayo inay ka mid
noqoto tallaabooyinka ugu muhiimsan ee tahay in la qaado. Tan ayaa imaanaysa xilli dalku uu ku jiro xaalad diblomaasiyadeed. guud ahaan daawadayaal intaasi waxaan oga eeg warka TV. Intaan mar kale kulmayno xagee tagnaa sida ay nabadgelyo. waad ku mahadsantihiin daawashadiina.